maalintii dad la uumay oo nebi aadan dushiisa loo ekaaday quraanyo ilaahay asmaceenna shahaada ka yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ayaantii ka dambaysay oo ay qurayshtu dhowday oo odayaasha la laayay oo dulqafaar rag afaystay ilaahay nuura udgoona ummadii naga yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ilaahay afarnaas iyo ib yaroo ka daloosho abeen looga caddeeyayoo amarkiisa ku yeelay abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ilaahay sawjad islaam oon aadmi nooga sokaynin aqid noogu xariiqay oo dabadeed ilmihii iyo ubadkii naga siiyey abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ilaahay axad roori ka abuuray candhuufo oo dabadeed indhihii iyo afka noo kala qaaday oo adin xoog lana siiyey abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ilaahay ebedkii iyo aalihii ka korreeyey iyo ishaad diinta u yeelayoo noogu dhiibay ikhwaanka abaal baan la gudaynaa asxaan waa ka qabnaa ilaahay ajasheenna indhaheenna ka duugayaan areenkoora u yeelin iimaan nooma sugmeene abaal baan la gudayne asxaan waa ka qabnaa markaabuu u daadegayaa ujeeddadii geeraarka oo ahayd inuu ku habaaro dowladda talyaaniga iyo maamulihii inay geelooda soo tiriyaan ku adkaystay wuxuu yidhi gabayse waa afkuleeble wadaad waa akhrigiisa gobi waa tayargeysa ilaahay cirka uumay oo dhulka hoos ka asraxshayow ilaahan amarkiisa aadni diidi karaynow ilaahuw nin uraayo nebi aadan ka leexdaan arrinkii isu keennay ilaahuw ingiriis iyo amxaartii shawo joogtiyo suldaan ruunka adeejiyo udubkiisa la siibo rag armaatiga qaatow naxariis ilha saarin ciidii baanda ahayd iyo goglahow ka idlaada aqiidka iyo bandaaskow ibliis ha idin dhammeeyo afnaqa iyo boygow asma beelka ku goysay siinka meel walba aadow irid ha u dhaqdhaqaaqin baabuurkay ordiyaanow omas meela la jiibso markabkii badda aadow irjic meel isu taag dadkuse waa kala ooda ninka geela afsaartayow ayaantan aynu joogno ayaanteeda kaleeto amarkaagu ma gaaro oo asma beelka ku goysradan dadkii goobjooga u ahaa siday sheegi jireen maalmo tiro yar kadib ayaa guuleed habaarkii qayb ahaan laga aqbalay si degdega ayaa maamulihii ay ka cabanayeen jubbaland looga bedelay taasise wax ma ahayne habaarka intiisii ugu ba'nayd dowladdii talyaaniga ee xilligaa jirtay ayaa loo kaydiyey 15 sano kadib ayuu inta ku habsado geesaha u dhigi doonaa waa sida reer gadoodku ay sheekadan ku dhammeeyaan